Nin masayrsan oo xaaskiisa baangad indhaha uga riday farahana ka jaray masayr dartiisa. Haweeneydan oo lagu magacaabo Maureen Atieno Omolo oo u dhalatay waddanka Kenya waxay ahayd orodda ama qofka ugu weyn ee carruur saddex hooyada la dhalatay. Nasiib darrase waxaa iyada oo 9 sano jir ka geeriyooday waalidiinteed, mana aysan helin, sidoo kale ma aysan haysan cid xanaanaysa iyada iyo carruurtii la dhalatay maadaama ay agoon iyo rajaba noqdeen. Waxaana qasab ku noqotay korinta ilmaha la dhashay inay mas'uul ka noqoto iyada oo 9 sano jir ah, cid waliba oo taageeri kartana ay u dabacsanaato. 6 sano kadib dhimashadii waalidkeed, iyadoo 15 sano jir ah, ayaa uu guur u soo bandhigtay una sheegay in korinta walaalaheed ka yar iyo iyadaba uu si wanaagsan u xanaaneyn doono nin markaasi deris la ahaa maadaama aysan waxba haysan. Taasi oo Maureen ay u aragtay xal fiican, sidaasina ay ku guursatay nin aysan ogeyn waxa uu ku noqon doono, balse ay dantu ku qasabtay. Ninka ay guursatay inkastoo uu siinayay cunno iyo wixii kale oo muhiim ah oo ay u baahato, haddana uma uusan ogolayn in ay nin la hadasho ama xitaa hadday iyagu la hadlaan ay iyadu u jawaabto macalla saaxiibadiis maadaama uu aad u jeclaa. Sidoo kalena waxa uu sheegay nin waliba oo xitaa saaxiib isaga la ah in aysan la hadli karin una jawaabi karin. Maureen oo arrintaasi iyo noolaanshaha ninkan xabsi u aragtay ayaa kala hadashay in uu wax ka beddelo arrinkaasi, waxa uuna u sheegay in uusan yeelaynin maadaama uu iyada si dhab ah u jecel yahay, isagoo guriga ku xiri jiray una ogolayn in ay baxdo ninna ay la hadasho amaba ay barato. Muddo ay dhibaatadaasi ku jirtay ayay u dhashay 4 carruur ah, 2 wiil iyo 2 gabdhood, balse dhaqaalaha ninku keenayay ayaa ku filnaa waayay reerka, waxa uuna u oggolaaday in magaalada Nairobi ay shaqaale guri uga soo shaqayso. Waxaana uu u sheegay in inta ay shaqada ku jirto hadday nin la hadasho in uu gubi doono iyada dhan. Balse markii ay bilo soo shaqaynaysay oo ay gurigeedii dib ugu soo noqotay, ninkeedii oo naag kala guursaday ayay ugu tagtay. Gurigeedii ayayna wada degan yihiin, waxayna iyadoo ilmeynaysa ay dib ugu laabatay magaalada Nairobi. Waxa ayna sheegtay in uusan ninkeedu markaasi ogolayn. Dhinaca kale waxa uu sheegay inuu carruurta dili doono haddaysan dib u soo noqon, weliba aysan si degdeg ah aysan dib ugu soo laaban. Oo waxa uu ku amray in hal guri ay ku wada noolaadaan labada naag iyo carruurta, balse mar dambe ayay u cuntami weysay Maureen in ay dib ugu laabanayso ayay u sheegtay, taasi oo uu sheegay in uu dilayo haddii ay mar kale ka tagto. Iyadoo buuqii uu taagan yahay ayay naagtiisii kala oroday oo soo gaday baangad, waxaana markii loo keenay uu ka jaray faraha hore ee gacanta, sidoo kale garabka iyo wejiga ayuu uga dhuftay, taasi oo isha ay ka dhacday gabadhan, waxaana isagii loo taxaabay xabsiga. Inkastoo iyadii ay ishu ka dhacday farihiina laga jaray, haddana waxaa la dhigay isbitaal ka mid ah isbitaalada deegaanka, kaasi oo xaalad kooma ah maadaama ay gashay si wanaagsan loogu dabiibay, balse aysan ishii u soo noqon. Waxayna haatan dib u heshay xorriyad wanaagsan oo si iskeed ah, iyadoo carruurtii haysata, sidoo kalena ilmaheeda dhabarka u haydatay in ay u shaqayso.